kaadidiisa ayuu cabay si uu u sii noolaado, balse ugu dambeyn gacantiisa midig ayuu iska jaray 5 maalin kadib. ninka aan ka hadlaynahay waa Aaron Ralston, geesigii reer Mareykan ee filimaanta laga sameeyay dhacdadiisa, balse adiga laga qariyay. 27 jirka laga sameeyay filimka 127 Hours ayaa 2003 u safray dhul buuraley ah si uu soo ogaado farqiga u dhaxeeya kaymaha hawdka iyo magaalooyinka New York iyo Washington oo isagu ku noolaa. Aaron isagoo maraya dhul buuro iyo dhagxina ayaa waxaa ku soo dul dhacay dhagax culeyskiisu ah 360 kilogram. wuxuuna qabsaday gacantiisa midig, taas oo sababtay inuu ka dhaqaaqi waayo halkaasi ilaa uu kaadidiisa cabo. 5 maalin kadib markii ay ka dhamaadeen sahayadii uu watay, wuxuu go'aansaday inuu jiro gacantiisa si uu naftiisa u badbaadiyo isagoo adeegsanaya qalab uu watay. wuxuu watay midi yar iyo qalab kale kaas uu u adeegsaday jarista gacantiisa. waxaa loo aqoonsaday geesiga ugu weyn carriga Mareykanka maadaama uu sameeyay dhacdo geesinimo leh taas oo hadalhayn badan dhalisay qarniga 21aad. markii uu jaray gacantiisa midig, wuxuu u lugeeyay 8 kiiloomitir si uu u helo daryaal caafimaad iyo gurmad degdeg ah maadaama in muddo uusan waxba cunin. kooxaha gurmadka degdega ah ayaa u sameeyay gargaar caafimaad, waxaana dhacdadiisa laga sameeyay filimaan caan ah. Aaron Ralston hadda wuxuu ku nool yahay carriga Mareykanka, gaar ahaan gobolka Colorado, waxaana loo aqoonsaday geesiga ugu weyn ee naftiisa badbaadiyay taariikhda Mareykanka. Aaron Ralston waa dhiirigeliye caan ah oo laga yaqaano carriga Mareykanka, waana aabe haysta 2 carruur ah, waana mid ku faana go'aankii uu gacantiisa midig isaga jaray. dhacdada labaad ee ugu hadalhaynta badan dunida ee laga qariyay waa dhacdada Felix Batista. waa kuma Felix Batista? muqalliskii ugu weynaa ee afduubayaasha qaaradda Ameerika oo aan nolol iyo geeri lagu hayn tan iyo 2008. nin u dhashay dalka Mexico oo caan ku ahaa inuu soo badbaadiyay dadka laga afduubto dunida iyo qaaradda Ameerika ayaa dabin ku dhacay maalin uu bixiyay seminaar ku saabsan sida afduubka iyo tuugada looga badbaado. wuxuu la xaajoon jiray tuugada iyo gaangiska ugu weyn ee dunida afduubka ka geysta, kuwaas oo ka soo deyn jiray dadka ay qafaashaan iyadoon la aqoon habka uu u maro iyo sababta ka dambeysa. 2008 maalin maalmaha ka mid ah wuxuu seminaar u qabtay arday ku sugnayd jaamacadda ugu weyn dalka Mexico. seminaarkaas oo ku saabsanaa sida afduubka looga badbaado iyo sida ay isaga ilaalin karaan tuugada. daqiiqad kadib markii uu dhamaaday seminaarka, waxaa afaafka hore ee jaamacadda laga afduubtay Felix Batista oo ahaa ninkii afduubayaasha la macaamili jiray ilaa iyo haddana lama hayo halka noloshiisa ay ku dambeysay nolol iyo geeritoona. waa dhacdo taariikhi ah oo diiwaanka gashay, waxaana loo malaynayaa inay ka caroodeen qishka uu siiyey dadweynaha iyo sababta uu u bixiyay seminaarkaas. dhacdada saddexaad ee ugu weyn dunida aan cidna kuu sheegin. hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Xaawo Maxamed, kuna nool carriga Mareykanka gaar ahaan Minnesota, ayaa hal mar dhashay 5 carruur ah sanadii 2024, mana ahan mid ay soo tabisay warbaahinta Soomaalida. Xaawo Maxamed ayaa haysatay rikoorka ugu badan ee carruur dhalista dalka Mareykanka, gaar ahaan qowmiyadda Soomaalida. dhacdada la yaab kale ayaa ah mid ka mid ah carruurta, gaar ahaan Bilaal, ayaa noqday canugii ugu miisaanka yaraa taariikhda ee abid ku dhashay dalka Mareykanka iyo canugii labaad ee ku dhashay dunida oo dhan. waatan hooyo Xaawo oo hadlaysa. markaste waan ka walaaci jiray. I didn't think he was going to make it. We were living by the hour. Hello? Are you going home today? When you look at Bilal, hooyo Xaawo ayaa carruurta ku dhashay 23 isbuuc oo keliya, waxaana sida caadiga ah la rabay in ku dhow 40 isbuuc. hase ahaatee carruurta qaar ayaa u muuqday kuwo caafimaad qaba marka loo eego bilaha yar oo ay ku dhasheen oo ka yar 9 bilood. Bilaal iyo mid ka mid ah gabdhaha labada ah ayay dhaqaatiirtu sheegeen inay u badan tahay inay keliya noolaan karaan 10%, balse taasi waxay noqotay qiyaas dhicisooday. Bilaal ayaa isbitaalka laga saaray sanad uun kadib dhalashadiisa isagoo u muuqda mid caafimaad qaba oo aan wax dhibaato ah qabin. waatan dhacdada afraad ee aan cidna kula wadaagin. waa kuma Mitchell Packard.
waa quusaa iyo badmaax ku noolaa carriga dalka Mareykanka, balse wuxuu 2021 la kulmay dhacdo la yaab leh kadib markii uu afka u galay libida aad u weyn. Badmaaxan oo wata qalabka neefta iyo dabaasha ayaa hal mar ka walharay isagoo ku jira caloosha libiriga inkastoo uu ka badbaaday dhacdadaasi. In ku dhow 1 daqiiqo ayuu ku jiray caloosha libiriga, balse markii dambe wuu soo tufay isagoo bad qaba, waxaana loo aqoonsaday mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweyn dunida qarnigan aynu ku jirno. Qisada Jose Salvador Alfrenja wuxuu 438 maalmood ku dhex noolaa badweynta dhexdeeda kadib markii dooni la caariday. In ka badan 1 sano ayuu biyo ahaan u cabayay dhiigga shimbiraha si uu u sii noolaado, waxayna ugu dambeyn doonidu geysay meel qiyaastii 10 kiiloomitir u jirta halkii ay markii hore kala quustay. Wuxuu cuni jiray malaay ceeriin ah iyo dhiigga shimbiraha, marna kaadidiisa ayuu cabi jiray. Intii uu maqnaa intaas ayuu ku noolaa, wuxuuna badweynta ku jiray in ku dhow 14 bilood. Ugu dambeyn waxaa laga qoray buugga 438, wuxuuna hadda ku nool yahay dalka Mexico isagoo bad qaba, waana taariikh la diiwaan geliyay.